waxa hadda waxyaalaha cabsida laga qabaa waxaa ka mid ah war aniga siyaasad maba ku jiraba mucaaradna maahi muxaafidna maahi waay anoo muwaadina oo karaamo lahoo sharaf leh xamar ma ku noolaa karaa anigoonan gabaad u ahayn dowladdaa ku jecel iyo dowladdaad saaxiib la tahay midna anoo mucaarad ahayn oo muxaafid ahayn dukaankayga ma furan karaa fura karaa fakarkayga ma dhiiban karaa oo sharcigu gabaad ma ilaalin karaa waay heerkaasay maraysaa heerkaasay maraysaa maxay inay maraysa maxaad ku ogaanay waay السلام عليكم كلنتو wanaagsan khiyaar ay ku soo dhawaada ha noolaato aniguna waa Yaanla Xuseen Cabdi sidaad la socotaan Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa xaalad adag oo la saadaalin lahayahay halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka doorasho ee Soomaaliya iyadoo aad moodo Soomaaliya inaan la kala garanaynin cidda u danaynaysa iyo cidda ka danaysanaysa waxay suuro gashay oo ilaah mahadiisa inaan magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya kula kulmo madaxweynihii hore ee Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare waxaan jecelahay maadaama aad muddooyinkii dambena aad ula socota siyaasadda Soomaaliya qaybna ka ahayd waliba dib u heshiisiinta iyo xalinta arrimaha maamul goboleedyadana aad ka mid ahayd dadkii lagu yaqiin akhrinta Soomaaliya haddii la fiiriyo xaaladda Soomaaliya maanta sawir naga sii bismillaahir rahmaanir rahiim ayaan loo horta hadda xaaladda Soomaaliya inuu cabsi badan aniga ugu haysaa waay cabsidaasu waxay ka imaanaysaa sidaan maxaa horeba kugu sheegay waqti badan aan wadanka joogo waay wax badan oo hadda intii arrimahan u socdeen xudugaalan waay dadku waxay u haystaan waxa la isku haystaa inay yihiin wax ku kooban doorasho madaxweyne waqtigiisa dhamaaday murashaxiin raba inay kursiga kula tartamaan madaxweynaha isku dhijina murashaxiinta fowdo wada soo ona soo fort saasay u haystaan arrinta meesha taal waa ka weyntaa waay arrinta meesha taalaha waxa waaye Soomaaliya waa wadan dagaal ka soo baxaya waay alxamdulillaah rabbil caalamiin dagaalkii qabiilka waa dhamaaday Soomaali dagaal qabiil warkaas hoosta ka xariiq waa dhamaaday qof Soomaali ah oo appetite u haya dagaal qabiil ma jiro waay maadaama dagaal qabiil dhamaaday jid dheer la soo maray waxa la rabaa in laga heshiiyo jidkeen qaadayna meesha kala goyska aan taaganahay jidkeen qaadayna waay si marka jidkan qaadayno aan isula fahmno dagaalkii aan soo marnay waa inaan su'aal iska weydiino wixii dhacay war maxaa horta maxaan u dirirnay dawlad fiican aan ahayn maxaan u dirirnay maxaan dawladda u burburinay burburkii maxaan ka dhaxalnay dagaalkaas waqtigaas uu socday ilaa yawmina hada waxaan isku dayaynay adigu 9 sano hor markii laga gooyo wada dib u heshiisiin shirar inta maalinba meela geedigu soo maray waay jidkaas maxaan ka soo baranay maxaa shaqeeyay waay inta yartaa hor hadda isku aaminsanahay oo noo taal say ku timid dawladda aan hadda kadib rabnane siday u taal su'aalo fiican horta su'aalahaas u baahan in wax la iska weydiiyo waay annaga dagaalka waxaan u dirirnay oon u burburinay xukun kiritalisa oo adag oo muxuu ahay xuriyaadkii iyo wixii oo dhan dardaray awoodii aruuriye dhaqaalihii aruuriye taladii aruuriye wadankii oo dhan xamar isugu keenay wixii oo dhan asagu hoosta gashtay markii dambe oo in la juqjuqeeyo la bilaabane kaar qabiil la soo baxay arrintii qabiileeyay qabiil dadkii ku dhex qarxiyey qabiil loo diriray lagu kala cararay dagaalka horta saas oo ah waay waa la kala cararay nin walba tuuladiisii ku noqday dad waa qaxeen
dad dhibaato muxuu ahay maxaan ka dhaxalnay dowladnimadii naga burburtay dad badanaa nooga dhintay muxuu ahay ii sheeg hanti badanaa ku burburtay dadaa weli dakano iyo aad iyo mid calool xumo weli qaba dad badanaa waalan oo maskaxdii laga galay oo dhibaato ka gaartay maxaa looga geli waayay يعني انت متوادمت لكن نول دبعت كربت فيري دغالada انت jireen taroomada ama calool xumada laga tiirayada laga dhaxlay waxyaalaha iyagu xanuunka badnaan ku sheega waay laba qof markaan arko qalbiga dhowr jeeraan arka nin odaya oo 70 jira oo hadda 70 jir waxa nolol uga haray waa qiyaas kartaa waay aqrul amri wax alla wuxuu adduun soo tacbay iyo wuxuu xoolo soo tacbay iyo wuxuu tala soo tacbay iyo wuxuu daara soo dhisay ka soo dhaxbaxay oo xira qaxootiye taagan ya oo ciyaalka iyo haweenka inuu ama saf la galo ama mataqaanaa wax la qaybsado dantu ku kaliftay waay ninkaas xanuunkiisa qiyaas aadiya wixii xamar ganacsi iyo hawl iyo reer muxuu ahay gabar ama reer ladnaa oo fila deganaa oo gaari lahaa oo darawal lahaa oo booyeysa lahaa oo adduun lahaa oo reer isjecel oo meel nolosha hadda la talaab qaada inta lugta lagu dhuftay gabadhii xataa cilaanka shaqaaluhu ay u saarayeen dantu ku kaliftay inay buush qaxooti shaah ku kariso qiyaas qofkaas taroomo qaba wixii xamar dukaamadii ku yilay aaway nusfu cadan aawa dukaanka la dhihi jira aawa carwadi idko bankuweer meesha la yiraahdo muxuu ahay Savoy Center Kuraaji Dilsuud wixii hanti adduunkan yilay aawa wixii dahablayaal xamar joogay aawa xamar haddaad qaado waxaad arkaysaa guryo villooyina oo markii hore sidii loo dhisay quruxda iyo naqshada iyo banaanka iyo jardiinada haddaad aragto qalbiga ku xanuunsanaa weli doldoloola waay waxaas maxaa aaway dadkoodii aawa guryahaas dadkoodii aawa qaaraa nool dad guryahaas baayida way dadaa nool oo xamar qalbiga aan soo sii karin inay xamar qalbiga soo siiyaan guryahaas waxa laga yaabaa hadda hadii way iibsanayaan haday dhahaan inay 100 kun inay u joogaan laakiin naftoodii ku aamineen Soomaa 40 kun oo qofood ayaa xamar 4 bilood lagu laayay madaafiic indiscriminate jug dagaalka 4 biloodka waay waxaan xasuustaa subaxa anoo xafiiska ICR sidaan ka shaqeynay anoo u socdo yaa gaari soo qaadaya nina dalcadan oo telefishinka marka laga yimaado ex control iyo calan gaduudan oo baabuurta ku joojiyay waay aniga waxaan isleeyahay calanka warninkan ilbaxa maanta war dadkii dawladda dad weli dambeeyaan ninkan macnaha baabuurta joojinay calanka ku joojinay majidka ma la jaaxay oo tuba ma la gelina koronto ma la gelina ma baabuur weyn oo xamuulaha meesha ku kala wareegay ila dalcad way wax gadaal aniga ma arka moogta واستاجن أنا قلت قلت كل واستاجن مدافع سفنا للضربة أمر إن قراءان محوها إلى بض 15 minutes وحكوا سعودين وحكوا سعودين وحال ذيك الجوجرة مدافع واي سبحان الله سوما أفرتم كنا كل مت وأبرياء مدافع الرضا باورة الجوجرة واي باي يبكول يقدر قريب كمية إلى بار داره 600 كل أقفوها كل مت قاجو واي تقول لي هذا بولي يوسف أقول حيس أو دين لي يبي دبو وحن نمد قف أيضا قف أو نكنولين imagine tuulo dhan oo dadkii ku noolaa ay dhinteen dadka qaar waxa laga xataa waalidkii iyo carruurta iyo isla socdo
oo raadinaya biyo iyo baadi kulli dhex ku dhimanaya soo maaha dadka ilaa safar nooleys ilaa iyo mataqaanaa aan raashin uga horgeyn jirin 300 kun ku dhimatay waxaas taariikhdaas lama soo qaado dad ayaga dadkaasan kuu sheega ayagoo xamar hanti ku leh oo xoolo leh yay kulligood wixii reer waqooyi xamar joogay oo hantida ku lahaa xamar waa ka baxeen soo waa ka qaxeen waxay lahaayeen waa ka tageen ayagina ayagoo qaxootiga ka baxeen wixii hantiyahay wixii maalahay wixii baabuurahay wixii adduunahay markaasaa jidkana weliba tii ilaahay ogyahay kula dhacday dadka reer xamarka iyo gabilcadka ahay oo hadda ilaa Mombasa ilaa iyo Zanzibar ilaa Cumaan ilaa Yemen jooga haddaad la soo sheekaysato waxay xamar ama hanti uga soo tageen ama dhibaato uga soo tageen haddii kaaga sheekeen waad yaabi nin hindi aan kula kulmay Kismaayo kula kulmay Mombasa reer Kismaayo aabay aniga Kismaayo ku dhalno yiri 30 sano wuxuu joogay Mombasa barnaamij ahaan oo la taagsiideynay soo maaha cajiib waxaas marka dagaalku markuu dhamaado bini aadamku wuxuu u baahan yahay waxa afka cilmi nafsiga afka qalaad lagu yiraahdo closure waxa waaye in wixii dhacay qofka laga samirsiiyo in laga hadlo laga maslaxo laga tiiraayo bixiyo lala ooyo asagu wixii oo ka sheekeeyo soo ma closure-ku yani cycle-kaasu muhiim u yahay nafta waxaad arkaysaa qofaad jeceshahay lagu soo sheego waa dhintay qofka waa dhintay maxaa ka qaban kartaa waxaad leedahay meydkiisa halay tuso waay meydku muxuu ku taraa sabarsiis waay waa closure soo ma waxaasoo dakanaa iyo waxaasoo cudura iyo waxaasoo naxtina iyo waxaasoo muxuu ahay cudad iyo cadaawad leh ayaa dhacay ayadoon layska warsan oon layska sabirsiin oon laysaga xilxirin weliba la inkiraya xataa kaaga daran maanta waxyaabaa ugu badan ee ha noolaato aniga kommentiyada aqriya waxaa ka mid ah barnaamijyada aan sameeyo ku saabsan dhibkii ka dhacay wadanka dad badan ayaad moodaa inay ku faraxsan yihiin morally oo ay leeyihiin waxaan maba haba in laga hadlo no fiiri wadamada dagaaladu ay soo mareen ama isbedelka xanuunka badan oo u dhacay wadamada closure-ka sameeyay oo si fiican ugu guuleystay waxaa ka mid ah Rwanda iyo South Africa Rwanda 800 kun oo qof la dilay waa la socotaa yani sanaday socotay tuulo loo tagay oo degmo loo tagay soo maaha South Africa waxay sameeyeen commission la yiraahdo Truth and Reconciliation Commission runka sheegida iyo fiir runka sheegida maxaa waaye ina qirato wax dhacay ina qirato South Africaanku waxay keeneen niman cadaana oo korneela oo garaadahoodii wata maxkamadda horteeda maxkamadda commission hortiisa oo chief mataqana tutu ninka la yiraahdaa ayaa jeergareynay yay waxay ka sheekeynayaan waxay madowga ku sameeyeen saasaan yeelna ili markaas ayagiya ooynay markaas dadkii dhageysanayeen waa ooynayaan tutu waa ooye wali youtube ku jira kan markiis oo kii cadaankii markuu saas yeelay madowga ayagana dhibkay geysteen sheegayaan waxasuusta waaga Zuluga waxay ka sii jireen tire intii gas lagu shubo petrol lagu shubo taraq lagu daaro qofka qoorta loo geliyo Sooma Soomaaliya marka waxaas ka dhacay marka closure ma jiro Soomaalidu waagii hore way lahayd samirsiiskaas iyo mataqaanaa hooyashada way lahayd wala soo imaajin isku qirashada soo maaha xoolaa la sii jiray diida markii la siiyo xilaa la sii jiray gabdhaha la sii jiray qoryaa la sii jiray
waagaas qoryuhu sida hadda yihiin ma ahayn qabiilka dhanaa waxa laga yaabaa 2 qori 3 qori inuu leeyahay imagine nin qorigiis ku siiyey naftiisu ku dhiibay qorigiisa markuu ku dhiibay macnaheedu waxa waa iska hoos keenay waay idil hadaa rabta idil soma dadkaas marka waxaa soo jira heesta calankaa la qaada iyo waa la gaardina iyo ciidamaha diyaarada laga daadina iyo horaa loo socona iyo marka laga hadlo oo la isaga garaabo xataa haddaan la isaga garaabin waxa xanuunka ugu daran ee Soomaalidu mar kale ay hanqaraysa kamid ah in haddana magaca dawladda dhibaato lagu sameeyo fiiri meel hadduu nabarkaaga yaalo inuu meeshaas nabarkaas ku yaalo nabar kale ku kordhaco iyo inuu meel cusub ku dhaco inuu meel cusub ku dhacaa nabarku baana ogyahay meeshii dhaawacii hore haddii dhaawac kale ku dul dhaco aaday u adag tahay inuu nabarkaas inuu baanto waxaan xasuustaa shirkii Soodare shirarkii la sameynay in fact 2 shir ugu miisaan lahaa shir wuxuu ka dhacay meesha Soodare Soodare waa Itoobiya Soodare wuxuu ahaa shirka ugu nuxurka badnaa ugu horeeyay la isugu yimaado oo la isugu keenay jabhadaha waxa la isku dayay iyadoon closure kaas la sameyn oo wixii dhacay aan laga wada hadlin in dawladnimo la dhiso nimankaas Itoobiyaanka ah waday dhaqan iyo waxaasi Soomaali iyo ma jirin dawladnimo dhagdhagsan yeelina anaguna saan garanti anaga ay siinayna ciidanka waxa kan dhagdhag hore loo socdo ilaa cudurkiya ajire oo leesma aaminsanay way halir meesha lagu soo kala tagay qol qaahiray aad qolana Puntland soo aad waa sida lagu dhisay federaalka ugu horeeyay Puntland in fact barbuusalka meesha yilay haddaad akhriso aad barbuusal u fiican oo ahay laakiin maxaa loo aqbali waayay waxaan jirin aaminaadii hoose ayaan jirin nabarkiya muuqda shirka kale wuxuu ahaa kii Carte shirka Carte waqti intuu qaato waa ogtahay shirku weyn oo Soomaaliya loo qabto Soomaha in fact qaybtiisa ugu badan waxay ahayd closure-kaas dadka la wacyigeliyo dadka la xanaanto muxuu ahay la caayo waxaan xasuustaa yamyam ilaahay oo naxariista uu leeyahay war waxay hor fadhiyaan ma daday u egyihiin ma xoolaa ma waxaasa ma kana ma kaasa uu leeyahay waxaas waa tiray bixin waa isceebgelin waay isqiireeyeen waay markii dawladnimada la dhisay marka ragii odayaasha ahaa oo runtii aad muxuu uga dooday waxa kamid ah ilaahay u naxariistay Xasan Abshir يعني habeen kasta waa fiirsan jiray yani wax kastoon haayo intan iska soo dhigo Xasan Abshir waa fiirsan jiray maxaa u fiirsan jiray wafdiga markaas Puntland ka socday Djibouti dilemma ku jiray dilemada ku jiray waxay ahayd xanuunkii gadaalo iyo dhibkii dhacay iyo wixiina waa u jeedaan is-aaminaad fiican oo badanuna meesha ma jirto xoogaa ay isku kabkabeen oo weli aanu hana qaadin oo xoogaa yar ay ku nasteen Puntland ay ku haystaan war waxaanu ama intay wax dhali waayaan wixiina yarka leedka kala daadiyaa shakigaas waa hadalko waa ka dhadhansanay haddana dantii Soomaaliya loo wada yimid oo habeen walba lees caynaaho lees wacyigelinaho lees duceynaaho madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dhex fadhiyo geel la qalaaho inta wixiina haddana waa qaada waayeen iyadoo sidii sibirhay ay soo qaateen Sooma waay fast forward marka soo wad hadda maanta madaxweyne Deni habeen dhow soo muqdbay soo khudbad qiira leh oo xanuun badan oo wuxuu mataqaanaa dhibsanaa iyo wuxuu ka shaki qabo iyo wuxuu diidan yahay soo ma sheegin waay khudbadaas ka warasad aragtay hadda khudbadaas
adna xogogaal ah fiiri contentiga waxa contentiga ku jira ha. aniga waxaa iiga muhiimsan soo bandhigidda qofka inuu wuxuu Ku dhaclay. wixii jira oo Sheegi karo. jira iyo wuxuu asagoo iska dhaadhiciyo waxay doonaanba ha ahaadaane wixii damiirkiisa ku jira inuu bannaanka la soo istaagaaho dawa raadintay ka mid tahay qof aamusan oo meel yuura waxba lagama soo maaha xal ma wado haddaan ku iraa war muxuu ahay ayaan low waxaas iyo waxaas oo inaad idishaan ka cabsan oo inaad isumaysaan ka cabsan oo kuuma imaan karo oo kuuma soo hoyo karo oo wax hal bilowgis inay run tahay inay been tahay maba aha muhiim waxaa muhiima inay intaas igu jirto soo maaha inay iga saartan adaa lagaa rabaa adaa lagaa rabaa waay inaad iga saarto adaa lagaa rabaa waay nuxurka marka madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu markuu dhegaysto inuu uu yidhaa war siciid bismillaahi raxmaan war ma intaasaa kugu jirta haa war bal ii imaaw talada adiga iyo hebel soo naba taal haa inta taladu noo socoto waa lagu sumayna soo maaha koobka shaaha ka kalaad adiga ko hal tarmuusan ka wada cabaynaa inta soo fadhiiso waa lagu dila soo maaha haddii lagu dila anaa ku dilaa qolka igu soo dhegan dego soo deg waay siciid muxuu dhahaa markaas wuxuu dhahamle aaryadaa ka baxday wixii ku jiro waana daweey intaas ku filan intaas dawo waaba intaasba waay dawo waa intaas waay meesha aan ku leeyahay yani cabsi ay u jirto waxa waaye hadda shirkan waa layskugu yimid waxaa cabsi laga qabaa soomaaliya jidkay ku socoto jid saxa inuusan ahayn waxaa cabsi laga qabaa wixiina burburiyey inaan iska hilmaanay waxaa cabsi laga qabaa wixii daawo ahaa inaan diidnay maxaa daawo ahaa wada hadal by the way siyaad barre markuu muxuu ahay dhintay ama xukunka ka tegey raggii gadaashiisa ka dambeeyo jabhadaha oo dagaalamaya rag badanaa isku dayay inay asigiyoo kala noqdaan oo ciidamo raadsaday oo is abaabulay oo warlordskii waa u shaqey wayse maahano therefore awood ma shaqaynayso zamanka la joogo dictatoriyad ma shaqaynaysaa raga ma shaqaynayso Haye, sabab- raga anaa ku sheegaa Haye. ragaa waxay isku dayeen taydaa soconayso cabdulaahi yuusuf muxuu ahay maxamed dheere ninka la yihahdo morgan maxamed nuur caliyow raggii oo jabhadaha ahay toodaa soconaysa waa soco weyse aan walaalo waay askari muxuu aad garanayso oo taqaano oo askartaada iyo tayda iyo tiisa la isku daray aad shaqaynayso moogiye askar aan amad adigu leedahay ama aanan garanayno madaxa u duuban yahay shaqaynayso shaqaynayso horta baayida wey waay marka warwarka aad qabto marka warwarkan qaba waxa waaye haddii shirkaanu baaba'o hadda shirkan hadduu baaba'o oo laysku imaan waaya maya waxba ama kasoo laysku bixi waaya. imaado wax kasoo bixi waaya waay deni wuxuu ku noqonaa horta rajada aad ka qabto inuu dhaco maxay leegtahay in laysku yimaado la wada hadlo aniga waxaan qabaa shirkan haddii akrinta la akrinaayo la bedeli waayo waxba kasoo bixi maayaan waay akrinta ah ee xukuna laysku haystaa iyo doorasha laysku haystaa iyo ergooyina laysku haystaa waa ka weynta arrintu waay waa maxay arrin wax laysku haysto waxaa laysku haystaa war jidkeen qaadaynaa dowladda aan rabnaa horta say u taal masiirkeenna waa xagee xaggee waayo saan rabnaa inaan isku xukumo mididaanaan haaya daabkeed ma adaa qabanaa mase anaa qabanaa haddaad adigu hayso waa igu dile haddaan anigu qabtana waa igu dile waay maxaa doorashada laga hadlaa maxay tahay masiirkaba laga heshiinay masiirka ma ka heshii karnaa maxay kula tahay marka aniga marka waxaan qabaa haddii marka horta khatartan aan kuu sheego Waay. siciid waa noqday puntland uu tegey wuxuu yidhi nimanyahow niyad wanaagaan xamar ku tegey waadna la socotiin faa'iidana kama keenin ama dadku maalin walba halkaasaa lagala socdaa waaba ujeedaanba axmed madoobe waa noqday wuxuu yidhi 15 maalmoodaan joogay muxuu ahay nairobi meesha la yidhaha xamar waxay la hadlay male markii la isku yimidna wax kaloo faa'iida nimanyahow taladeenna bal meel hanoo
puntland waa leedahay anaaba haddaan kuu sheegay Ha. waa sababta aan kaaga soo taariikheeyo waayo xasan abshir iyo puntland inteeda yartaa inaysan ka kala duminaa wax walba uga muhiimsan haddii xamar sheekadeedu u begi weyso cala alaqal ugu yaraan waxay leedahay albaabka noo soo laaba intay dabayl xunaa socotee inta dabayshu dhinaca naga marayso la fayr albaabka noo xira waay markay dabayshuna dhaafto kadib aaryo fiican noo soo gelaysa noo fura haddii kale inta dhirif la tagay waxay dhahay waaba goosan indhaha in la furaa raba indhaha in la furo aa la rabaa maxaa ku kalifaya waxaa ku kalifaya sow anigu ma kaaga sheekayn mar hore sow wixii hirshabeelle igu qabsaday soo kaagama sheekayn aniga may dowladdu siciid deni iga jeceshahay igama jeclo waa oon uga dhowahayoo meel shaqfusheedan ku jiraa meelay iga hagarshuumi karto iga soo gaartaan joogaa dad garab ahoo oo iga difaacana ma haysta le waayo ma ogiye ma siciid deniyo joohor joogay dhaafi lahayd dowladdu miyay kula tahay inay dhaafi lahayd haddii marka uu ku noqdo puntland hadduu ku noqdo meeqay qaadanaya inuu mar labaad xamar ku soo noqdo adigan ku weydiina waa adagtahay soo ma waa adagtahay waa adagtahay waxaasoo shaki ah fiiri madaxweynihii wadanka waaye asagu ma ka sabray garowe iyo puntland ma ka sabray weligiis inuu taga ma rabay miya waa su-aal fiican laakiin maxaa keeni kara kalsooni darada intaa la eg iyo in haddii la leeyahay aan ku heshiino masiirkeenna waxaad rabto damacaaga xagga dhig kaygana aan xagga dhigo ee aan masiirkeenna ka heshiino haddii la leeyahay yay dhibaato ku tahay waxay dhibaato ku tahay masiirkan raba iyo masiirkaad rabto hadduu kala duwan yahay ma isla keenayno waay labada masiiroo la kala rabo banayfasa anigay adiga gaariyaa dhexdeenna yaal waay gaarigan balcado ujeedaa iyo wuxuu ujeedaa afgooyaa isku haysanaa warniyow afgooyaa nooroon jidkeeda waa la sameeyey liisha waaye aan tagno ma tegayna kanaan aadaynaa intaasaan isku haysanaa ilaa aan ku heshiino inaan ama balcad aadayno ama afgooyo aan aadayno gaarigaas ma la dhaqaajinay kula taade mise waa ku heshiinaynaa waa adagta mase doobdu darawalkay joogtaa darawalka ka bedel anaa wadaa iyo anaa wadaa bay joogtaa ma joogto anaa wadaa iyo anaa wadaa waxay imaanaysaa markaan ku heshiino aan balcad aadno iyo aan afgooyo aadno marka masiirkaa la ysku haystaa ma ogiye waxaan kale way iska fudud yihiin see u fakiraysaa marka labada dhinac waa sheegtay waxa la isku haysto masiirka tahay dowladdu xalkay rabto muxuu yahay meesha u rabto waddanka inuu noqdo ugu dambeyn mas-uuliyadda ayaga saaran tahay oo hadda iyaga weli ushii midida dabkeeda hayee waxay masiirkay rabaan Soomaaliya inay gaarsiiyaan muxuu yahay dowladdu waxay rabto maba qariyaanba waa sheegaan taageerayaashoodu in social media ku soo qoraan waxaan xasuustaa 4 sano dowlad hadasho oo shir jaraa'id qabato ama ummad la hadasho madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ha noqdee lama hayo taas waa mid dowladda waa muuqataa horta systemkan federaalka ma rabaan totally ma rabaan wayna sheegaan waxaan xasuustaa markii ugu horreysay oo aan xafiiska ra'iisul wasaaraha aan imaado yaa markaan soo galnayaa qolo oo gaalaha kuli jirta xoogaa waa sugeyn marka wifi-ga wuxuu soo qabanaa moogtahay dadka oo deegaanka ka dhow ninaa wifi-giisu wuxuu ku qoran yahay federaal diid oo xafiis ibraahim nasarki waaye waxaa ugu qoran federaal diid mobilkayga soo qabtay waaye ma rabaan waa ka khudbeeyeen supporterskooda waa sheegeen wasiiradooda waa sheegeen wasaaradahoodu weli sidii u shaqeeyaan wasaaradaha oo federaalka magac le laga yahay moogi wasaaradaha beeraha xoolaha caafimaadka kulli sidii unitrigii u shaqeeyaan therefore waa muuqataa dowladdu systemkan federaalka inaysan rabin dowlad xoog badan waa jecel yihiin Soomaalidu nationalistiyaal waay laakiin dadka waxa la yiraahdaa ma aqligaad ku fikiraysaa mase qalbiga dad badan qalbigoodu wuxuu rabaa dowlad dhexe oo quwad leh oo xoogan oo centraala oo madaxweynuhu u taliyo qalbigay ka rabaan
laakiin maskaxdu waxay u sheegaysaa war amay nooga dartaa amaan meeshii ku noqonnaa maxaa tii hore naga raacay bacda tacab washidda hal intaan joognaa walaalow iyo walaalayaan inta ku nimid yacni meeshii soomaalidu ka dhahdo caloolo waxay ku jirta kuma daawoodo haddaan aniga hadda aan inta xoogaa lay galo sun aan cabo oo isbitaal layla cararo oo layga soo matajiyo oo faleebe laygu suro oo lay nadiifiyo oo antidood laygu duro oo yaa allah nafta laygu soo celiyo oo lay keeno oo lay soo fadhiisiyo oo dhidid waaweyn iga soo baxo oo bakoorad qaatoon bal istaag aan inaan dhacdhacoon mataqaan xoogga ii soo noqdo shayga ugu horeeyan doonta hadduu suntii noqdo ka war isla ayadii oo yara suntii siya tii waxaa ka dhigan tahay marka inaad mar kale nidaamkii kacaanka iyo dictatoriyaddii aan dhahno waa xiisaan u qabnaa dawo noo yahay dowlad xoog badan oo ciidan leh oo xuduudaheeda ilaashata oo waddanka xukunta oo jidadku isku socdaan oo baydhabo laga soo cesheeyo oo annagaa ka jecel madaxweynaha annagaa ka jecel ra'iisul wasaaraha annagaa ka jecel baarlamaanka laakiin dadkeeda ma hayno laakiin lama joogo dadkeeda lama hayo lama joogo soo maaha marka dooda maanta meesha taallaaho taas waayo ma ogiye doorasho iyo doorasho la'aan arrintu ma joogto waana ta aniga igu beeraysa walwal inaysan arrintu dhoweyn maxay dadka xamar u aamini layihiin dowladda kalsooni darada xamar taalla maxay tahay niyo horta xamar waa caasimaddii waddanka xamar dhibaato xoog lahaa haysata matalaad la-aanaa haysata dadku fiiri kor waayeel waa wada indho canshuurta ka soo baxda boosaaso iyo deegaankii wax loogu qabtaa canshuurta ka soo baxda kismaayo wax loogu qabtaa taxamar soomaaliya oo dhan wax loogu qabtaa waa ujeedaan wamaca dalika culays shabaaba u dheer dowladdii dhex joogtay waxay dadku ka dareensan yihiin dowlad u damqanaysa inaysan ahayn waxaa hadda waxyaalaha cabsida laga qabaa waxaa ka mid ah war aniga siyaasad maba ku jiraba mucaaradna maahi muxaafidna maahi anoo muwaadina oo karaamo lahoo sharaf leh xamar ma ku noolaa karaa anigoonan gabaad u ahayn dowladdaa ku jecel iyo dowladdaad saaxiib la tahay midna anoo mucaarad ahayn oo muxaafid ahayn dukaankayga ma furan karaa fakarkayga ma dhiiban karaa oo sharcigu gabaad ma ilaalin karaa heerkaasay maraysaa maxay inay maraysa maxaad ku ogaanay xasan cali khayre soo maahay ninkii ciidanaan dhisaa reformaan samaynaa sharciyaan dejinaa adduunaan habaynaa adduunyadaana jeclaatay waa nala ammaanay ciidankou dhisaayay oo waa nala ammaanay oo lahaa kuwa xabadeeye maahano sow ninka ay isla gambanayeen oo difaaca ay isla dhiganayeen soo cabdiraxmaan cabdishakuur maahayn oo shalay laftiisu xabadaynayo maaho maanta labadooda la wada xabadaynaya sow maahan haddii marka waxa gabaadka loo yahay ay yihiin sharciga dastuurka wixii lagu ballamay kala dambaynta muwaadinnimada xaqa aan leeyahay xaqa laygu leeyahay haddii waxa meesha lagu jooga hadday yihiin xasan cali khayre asoo muwaadin hor raaxaysanaa oo markuu maqaayad soo galo looga istaagaa uu joogi lahay hadduu xil ka tagay dhibaato ma ku qabi lahayn markuu xilka joogay laakiin waxaasoo dhan ma dareemayo bal isagaaba qaybkaa dhibaatada ma dareemayo maxaa sheekh shariif iyo xasan sheekh iska dhaaf murashaxnimo iyo kursiyaa rabaa iska dhaaf maxaa kalifaa inay habeenkii keebla yuurar ay ku baryaan oo xero military guryahooda xero military ay noqdaan maxaa ku kalifaya waxaa marka la rabaa waa mid aan ku leeyahay war jidka aan qaadaynoon u soconnaa kee waaye
ma jid sharciga gabaad loo yahayaa mase waa jid haddaad ka tirsan tahay xisbigaanne waad noolaan haddaadan ka ahaynne ma noolaanaysid 1 bilyan sanadkiina lagu qarash garayaa 20 kun oo ciidan oo ajnabi ah nala joogo ajnabi shabaab ah joogo intaasoo dowladooda nala joogto waxaad aragtaa xalana jooga ajnabi leeba na wareerinaya maxaa kaloo yaa kaloo nagu dhex jira oon ajnabi ahayn marka saasay macnaha beesha caalamka hore welwelkaasay ka muujiyeen turkiga waa la mid turkiga waa wadanka runtii sida dhabtaa soomaaliya ula saaxiiba weliba siyaasadoodu waxay ahayd inay shacabka la saaxiibaan inayna siyaasiyiinta la saaxiibin oo mucaarad iyo muxaafidba ay dadan ka lahayn xasan sheekh la saaxiibaan sheekh shariif la saaxiibaan farmaajo la saaxiibaan nin walba ay la saaxiibaan hadda waxay dareemeen colaad in turkiga loo abuurayo walwal aan la qiyaasi karin soo galay way dawladdu abuurayso oo ciidankii iyo environmentiga iyo ciidankii iyo hubkii ay Soomaaliya ugu kala siyaasad loo isticmaalayo Soomaa hadda wasiirkooda arrimaha dibadda ama maanta soo beega Soomaaliya way marka beesha caalamku halista meesha kala guurka oo halista ah oo taaganahay beesha caalamku way akhriyeen laakiin anaku ma akhrin way akhrinta beesha caalamku maxay beesha caalamku waxa waaye in usha dhaxta la qabto inay Soomaaliya inay halis ugu jirto inay burburto أنا مركب عن قباه. واي. وأنا كلمة أقدم بيسا أن قبان كوشيا. واي. دقال كي بربر كي. يصدق كي سنة. شعب كورة درسي كبرتين. دولدنا إني درسي كبرتين هذا لكن كم برا. شعبكم حي كبرتين. شعبكم حي كبرتين. دولة لا نبعت ذي هذا. inay dawladu ugu xuno ay mid dawlad la dhaanto intaas ka bartaan waana sababta dulqaadka zaa'idka gaar ahaan dadka xamar degan ay u muujinayaan waxay ogsoon yihiin hadday dawladdu burburto dawlad laan waa yaqaanin weliba majority-ga Soomaalida shacabka Soomaaliga dhalinyaro u badan yihiin دولة لا لي بكسايان دولة ما بيقانين وما واصح دولة دو حل ربي أيضا إني برته شعب متقن اللي قد بقي عواقب كلها ما وحو سماي كرم واي شعبكو أخلاق ذا يقرأ الضمينتا iyo masaajidka la aada iyo cibaadada iyo isku toosnaanta iyo magaalada kala socota waa intuu sharciga iyo kala dambeynta jiro wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan u soo taagnahay magaalo 5 saac laga aadaan sabab dhibaato dhacday darteed wuxuu leeyahay dhibkan naga daaya dadkii ilaahay u noqonayaan waay marka qofka haddii xorriyadda loo diido shaqada loo diido oo wax walba loo diido marka shicibku darsigoodii waa barteen laakiin dawladdu shicib ma baran inta talada haysa tan hadda keliya maaha inta talada haysa macalku raba inay ku fariistaan waa maxay marka sababta madaxweyne ma dadka madaxda ah waddanka xukumaya abaan ogeyn wax la soo maray والله إني هرت بني آدم قلبي جيس لما قعنتي تي اللي قلي وحي كجرا لما أقاكر أنا وحي أون بناك يالا ما أقاكرنا لكن هذا سوء موقت دين سومالي هو أقوى حلا سومري دبك السومري تاريخ ذا سنا آخرستي أما جوب جوجها ما أمالينا إنه شعب كده جين دور سوماليا أنت سالك برت إلهي محو هاي waxa absida aan qabno been Allah ka dhigo Allah naga badbaadiyo laakiin arintu maxuu ahay jar la ciyaaray godadooga ay dhahan waliba jarta ka siiyay ilmaha ciyaar godkaanaan dig aniga kanaan dig
warqadaan qoray saaxiibada madaxweynayaashii maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe oo labadaba aad u taqaanood qof u taqaanood la soo shaqaysa maanta maxaad dhihi lahayd adoo bannaanka ka jooga ogaana ceelka waxa ka socday maxaad dhihi lahayd ummadda soomaalida taariikh iyo magac uga taga ummadda soomaalida saasaa dawaa u ah haba noqoto xitaa war hebelow ummadda dhaaf inaad tiraahdo maya saaxiibada haddii ay la hadal hadday tahay saaxiibaday halaal leh dhammaantood waay markaan qolka iskugu tagno ama 7 aan nahay ama 8 nahay qolka aan iskugu tagno aan soo laabanno taleefanada aan iska dhigno hadal bilowno qof walba mowqifkiisa iyo wuxuu ka cabsanaa iyo wuxuu diidan yahay iyo waxa meeshuu ku yimid laga qabo waa is ognahay wax noo kala qarsoon male waa sababta aan la isugu xiisa qabin madaxweynuhu waa ogyahay Siciidani mowqifkiisa waxa ka hadlaysa waa ogyahay Axmed Madoobe waa ogyahay iyagana farmaajo waa ogyihiin ayaguna waa ogyihiin qoor waa la mid madaxweyne Cali Guudlaawe waa ogyahay aniga markaan meesha joogay habeen kastaan brief garan jiray wax ku seegan male ilaahay abuurtay ma arko waay waxa meesha ka jira waa ognahay nin walba wuxuu diidaana waa ognahay nin walba wuxuu damacsan yahay waa ognahay naqshadaada waa ogahay tayda waa ogtahay waxaad yani go'aankan qaata kad ku uga fradil ficligiisa waaba sii ogahay waay marka waagii waa baryay bannaankay arrintii timide qol waa dhaaftaye ummadii oo dhan idin fiirinaysa beesha caalamka idin fiirinaysa waa la yaaban yahay wasiirkii Turkiga hadda waa soo socdaa ka Mareykankuna inuu yimaado hafilo waayin kuwa kalena warkoodaba ka bax ama wadanka badbaadiya oo runta isu sheega waay oo aan ku celiyo Siciidani intuu maalinkii ka sheegay fagaaraha intuu ka sheegay inta qolka ku jirna uu sheegi jiray anagu waa ognahay intaas uu sheegi jiray waay waa laga qaadi waay maahano koro u sheega maahano hadda bahashii koray timide xalliya marka waxa xalliya oo arinta xalliya haddii shirkaasu guuleyso waayo oo waxa jira xal laga gaari waayo warkayga meel ku qor Soomaali dambe tale lama weydiinayo kuwa ku riyoonayo danina heeska noqdo Axmed Madoobe heeska noqdo farmaajo si jooga geediguna hore u socona wixii ka dabaqaylana ka dabaqaylay riyay ku jiraan riyo yaa talada qaadanaya riyay ku jiraan Soomaa talada hadaa tashaweyso adduunka sideedaba vacuum wax la yiraahdo kama jiro waay meeshii wax ka baxaan dhaladaas haddii biyaha ka dhamaadaan bedelkeedii hawaa gelaysa haddaan tashaweyno waa naloo talina aad iyo aad baad u mahadsan tahay warkaas meel loo dhaafo ma leh daawadayaal guud ahaan barnaamijkii inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa anigu ayaan la xuseen cabdi oo idila socodsiinaya waxaa marti ahaa Dr. Maxamed Cabdi Waare madaxweynihii hore ee Hirshabeelle intaad mar kale kulmi doon waxaan idin leenahay nabadgala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu